بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada channelkeena farxiya kushiin asxaabteyda qaaliga ah markale iyo muuqaal cusub maanta waxaan inoo wadaa casho isku dheelitiran dhammaystiran iyo weliba quraac maasha Allah cuntadan haddii aad u samaysid xaajigaaga ma iloobi doonaan ku dhama fahanteen yaa cunno kale uma dhamaysa xitaa hoteelada qaaliga hadduu ka cunteeyo cunno isku dheelitiran laga sheekeyni karin soo dhawaada daawasho wanaagsan kan waa quraacdii cashada ayaan ku bilaabaneynaa muuqaalka waxaa waaye markaan hagaajinayo ayaan cashadii soo hormariyay halkan waxa ii yaalo kiili hilib ari ah inta waxa ii yaalo yaanyo laba xabo oon biyo kusoo kariyay kadibna waan soo shiiday xagga waxa iigu jiro basal iyo sanjabiilka qoyan saliid inta waxa yaalo kamsar caleen dhinaca kale waxa noo yaalo waa caano garoor hal bakeeri dhinaca kale waxa noo yaalo xawaajiyo isku dardar ah intan waxa noogu jiro hayl qorfe dhagayaro iyo maxaan ku yiraahdaa liintaas qaleelka ah liintaas qalalan liinta hadee kaa qalashaa iska tuurin cuntada lagu dhex karsadaa waayo waxaa laga helaa calcium dhinaca kaleeto saliid ayaan dabka saaray ama subag isticmaali kartaa kadibna waxaan ku darayaa haylkii qorfihii dhagayarihii iyo liintii intaas kadib waxaan ku darayaa sanjabiilka qoyan iyo maxaan ku yiraahdaa basal hal xabo weyn oon si yaryar usoo jarjaray kadibna waxaan sugaynaa basash intay ka bislaanayso basash kastoo gaduud markay noqoto ayaan kusoo gudinaynaa waxyaabaha kaleetan ugu tirigalnay waad ujeedaan basash haddii kaa gubato bariiska kaa haleynaysa saas ula soco bariiskana marka hore waa la kala karinayaa kadib ayaan isku karinaynaa biryaaniga qaabkay u samaystaan carabta ayaan maanta u samaysanaynaa maadaama aad iga sugayseen basash markay noo bislaatay waxaan ku daray hilibkii ayaan ku gadiyay kiilo wax yar dhiman waaye kadib waxaan ku daray kamsar caleen kadib waxaan ku daray xawaajiyo isku dardar ah qaadada haafkeeda intaas kadib waxaan ku darayaa yaanyadii aan soo shiiday yaanyada laba xabo biyaan ku kariyay kadibna waan soo shiiday micno ma lahan intaad jarjartid ayaad caadi ugu dari kartaa kadib waxaan ku darayaa bakeerigii caano garoorka ahaa digsigan aan ujeedaan aan rabaa inaan ku kariyo hilibka markuu si fiican u bislaado asaga iyo macal maraqiisa kadib ayaan bariis ku habeyn doonaa insha Allah kadib waxaan ku daray qaadada haafkeeda oo cusbo ah intaas kadib qaadadan dhex marinayaa waxaan ku dari doonaa qaadada haafkeeda oo toon shiidan ama toonta caadiga isticmaali kartaa micno ma lahan haddii ay tahay channelkan markii kugu horeysa aad soo booqato waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walbaan usoo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah haddii aad gambaleelka taabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo caanaha garoorka iyo hilibka markii la isku kariyo waxaan ku dhahay dhadhan aan caadi ahayn ayaa kasoo baxaayo intaas kadib waxaan ku darayaa hal bakeeri oo biyo ah daboolkan dhab ku siinaynaa 40 ilaa 50 daqiiqo ayuu dabka saarnaanayaa kadib ayaan kusoo laaban doonaa insha Allah dab caadi aad ku karinaysaa 40 daqiiqo ilaa 50 daqiiqo haddii uu saarnaado hilibkii lafaha waxaan ku dhahay way isdaynayaan si fiican dhinaca kaleeto biyaa dabka saaray waxaan ku darayaa qorfe iyo maxaan ku yiraahdaa hayl kadib waxaan ku darayaa saliid kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah waxaan rabaa bariiska inaan kariyo bariiska saacado ka hor ayaan biyo la dhigay bariiska sida baastada camal u miireysaa bariiskan waxaa la rabaa inaadan aad u karinin waayo dabka lagu celinayo mar labaad wax yar markuu bislaado oo aadna u bislaanin waan soo miireynaa insha Allah bariiska dhanaan kusoo gadinayaa bariiskan haddii ay haysatid basmaatig subaxdii biyo la dhigaysaa galabtii oo kale ama habeenkii ayaad samaysan kartaa wuxuu noqonayaa bariis aad u dhaadheer sida baastada camal ah baasta la jijibiya u maleysaa hadda waan kusoo laabtay waxaan rabaa inaan miiro saa ujeedaanba saas ayuu kusoo baxay aadna uma bislo mana adko meeskooto waayo kulli waa fahmi kartaan waxaan soo qaadanayaa qaadadaas kadibna saas ayaan uga bixinayaa biyaha ayaan sida uga miirayaa dhinaca kale hilibkii waa ujeedaan suugo yar oo kala arag ay hilibkii si fiican u bislaaday laga sheekeyni karin maasha Allah hilibka ujeedaan siduu u bislaaday waxaan soo qaadanaynaa maxaan ku yiraahdaa bariiskii noo diyaarsanaa kadibna bariiskii oo dhan ayaa hal mar kusoo gudinaysaa dabkaad u yareynaysaa ugu yaraan 6 daqiiqo ayaan sugaynaa insha Allah bariiskii oo dhan markaan kusoo gudiyay laba kalar aan rabaa inaan isticmaalo kan cagaarka ah kalarka oo cuntada lagu darsado iyo midka jaalaha ah ayaan isticmaalaynaa bariiskana qurux ayuu ka dhigayaa intaas kadib daboolkan dhab ku siinaynaa insha Allah 6 daqiiqo kadib ayaan kusoo laaban doonaa dabkan waa inaad u yareysid si aysan kaaga gubanin hadda waan kusoo laabtay qaadadan dhex marinayaa labada kalar waa inaad isku dartid cadaan iyo cagaar iyo maxaan ku yiraahdaa jaalo noqonaya qurux maasha Allah bariiskan martiqaad haddii aad qabtid aad ku anfacaya haddii xaajiga u sameynaysid waxaan ku dhahay shaki kuma jiro cimaamada lagu saari doonaa ugu dambeyntii waxaan soo qaatay warqadda aluminiumka halkaas dhexdeedan u saaray
kadibna waxaan soo qaadanayaa dhuxul halkaas aan u saarayaa kadibna wax yar oo subag sixin ah ayaan ku shubaynaa qiiqaas waxaa la rabaa bariiska inuu ku baxo oo aad ku daboolaysaa dhab ilaa 1 daqiiqo qiiqa dhan markuu ka baxo 1 daqiiqo kadib waan kusoo laabtay waxaan ku dhahay bariiska caaraf maasha Allah bariiska waxaan ku dhaxalay waa la isweydiiyay meel uu ka baxay dhadhankiisa macaankiisa lagama sheekeyn karo maasha Allah waa cashadii familka oo dhameystiran maadaama aad iga sugeysay cunooyinka xaajiga anaga waxaa hal meel aan ku wada cunteynaa xaajigii caruurtii dhamaan yaa maasha Allah hadda waa diyaar waan ka dijinayaa waxaan soo qaatay saxan weyn waxaan rabaa saxankaas aad ku gadinaysaa hal mar miiskaad saaranaysaa qof walba saxankiisa intii ku filan ayaa loogu ridayaa maasha Allah waa ujeedaan bariiskii bismillaahir rahmaanir rahiim bariis dheer oo furfur oo kaal iska arag waaye yaa biryaaniga dhan been u dhahayaa sida aan hadda bariiskan u kariyay ayaa biryaanigan loo kariyaa maasha Allah lagama sheekeyn karo bariiska caraftiisa dhadhankiisa soo tijaabi insha Allah waad ka heli doontaan bariiskii ayaan sida u dhaxmarnaa qaadada waxaan rabaa maraqaas iyo hilibkii wixii dhan ay si fiican isku dhaxgalaan bariiska markaad sida u karinaysid uma baahna suugo badan macnaha maraq badan uma baahna intaana ku filan ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa bariiskan quruxda badan inaad ka faa'iideen cashaa ka dhigan kartaa qadaad ka dhigan kartaa soo maahan meel u diidaya ma lahan waa ujeedaan hilibkii lafiis siday u kala baxeen waxaa noo dhiman quraacdii muuqaalka dhameysta insha Allah quraacda maraq leh waa waxa idin tusin rabo digir iyo baradho la isku karinaayo bariiskii sheekadiis way soo dhamaatay dhinaca kaleeto digsiyan dabka saaray waxaan ku shubayaa saliid waxaan rabaa inaan kariyo maraqa oo lagu cuni rabo sawaayada anaga badanaa quraacdii waxaan sameysanaa sawaayad canjeerada ku cuni kartaa macna ma lahan rootiga lagu cuni karaa wuxuu diidayaa ma lahan waa maraq aad ku anfici doono waxaan ku daray saliidii markaan dabka saaray waxaan ku daray xawaaji dhudhuub hayl iyo qorfo caraf ayuu ka dhigayaa maasha Allah wax yar ayaa sida u walaaqaysaa kadib waxaan kusoo gadinayaa basal hal xab basal cad oo aan si yar yar u soo jarjaray basal ayuu nooca isticmaal kartaa macna ma lahan maanta basasha isticmaalayo waa basasha cad mid raashinka lagu cuno intaas kadib qaadadan dhaxmarinaya waxaan sugeynaa basasha intay nooga bislaanayso insha Allah muuqaalka dhameysta si aad uga faa'iidaan gabdhaha qaar waxyaabaha qaar ay soo weydiiyaan sida oo maxaan ku yiraahdaa waxyaabaha aan ka hadlay soo weydiiyaan soo waxa fiican muuqaalka inaad la socotid aad dhameysatid si aad uga faa'iidid insha Allah basashii sidaas kalarkaas quruxda badan markay ku soo baxdo kadib waxaad ku darsanaysaa xawaajiyadii oo dhan quraacdeena waxa waay sawaayad iyo maraqan wuxuu ka samaysan yahay digir iyo baradho yaa digirta iyo baradho san hadda u samaysid maasha Allah waa ka heli doontaa waxaan ku daray barbarooniga shiidan waxaan ku darayaa xawaaji isku dardar ah waxaa kaloo ku daray toonta shiidan iyo barbarooniga shiidan hal mar ayaan ku daray kadib waxaan ku daray xawaaji isku dardar ah qaadada haafkeeda intaas kadib waxaan kusoo gadinayaa baradho aan si yar yar u soo jarjaray 4 xabo baradho waaye si yariis aan u soo jarjaray qaadadan dhaxmarinayna insha Allah digirta intaan kariyo bacya aan ku xirxiro ayaan frinjeerka qaybta barafkan geliyaa si waqti badan ay kugu taalo mar walba digirta aad u baahatana hore aad dabka saaraysaa uma baahna saacado badan in la kariyo intaas kadib waxaan soo qaadanayaa waxyaabo marba inaan ku daro waxaan ku darayaa wax yar oo cusbaas ujeedaanba kadib digirtii oo aan barafka ka soo saaray ayaan ku darayaa hadii aad doonto yaanyo waa ku darsan kartaa macna ma lahan intaan iyo xawaajiyadii ayaan rabaa inaan isku kariyo oo maraqii aan rabaa inaan ka sameeyo insha Allah intaas kadib waxaan ku darayaa biyo hal bakeeri oo biyaan ku shubayaa kadib daboolkan dab ku siineynaa cusbadiisana waa inaad iska fiirisid cusbadan adaa ku yareen karo adaana ka badin karo biyihii markaan ku shubo saad ujeedaanba qaadadan dhaxmarinaya daboolkan dab ku siineyna insha Allah markuu soo buro digirtan ayadaa kala fuqi doonto digirtu way bisishahay ugu dambeyntii waxaan ku darayaa kamsar caleenta markaan ku daro daboolkan dab ku siinayna insha Allah markay diyaar noqoto ayaan ku soo laaban doonaa hadda waan ku soo laabtay maraqii waxaan rabaa inaan ku daro basal baar basasha barbarooniga wixii jecesha ku darsan kartaa macna ma lahan basal baar aan soo jarjaray ayaan ku daray waa ujeedaa maraq sida uu ku soo baxay quruxdiisa iyo dhadhankiisa lagama sheekeyn karo maasha Allah quraacdii waa diyaar maasha Allah baaquligaas weynka ayaan kusoo gadiyay maraqii inta waxa iigu jiro sawaayad labada dhinac ka gaduudan aadna u jilicsan aad u maleysid malo wax amal jileeceeda saan marka u diyaarisid miiska ku diyaarinaysaa saxamanka soo diyaarsanaysaa koobkii shaaha yaa isnooleeyaan ku dhayn adeer
oo ujeedaan sawaayad sidee u jilicsan tahay. Sawaayadan marar badan aan soo geliyay channelkayga way ku jirtaa iyadoo afar gees iyadoo warwareeg ah aadna u fudud. haddii aadan weli arkin channelka hore u gal insha Allah. maraqina waa dareemi kartaan sida uu yahay. digirtii iyo baradhadii xawaajiyadii lagama sheekeyn karo. waxaan ku kormiraa liin dhanaan. ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa quraacdii iyo cashadiiba inay idin cajab geliyeen. waxaa idinka codsanayaa muuqaalka inaad share garaysaan si dad badan ooga faa'iidaan. gurigaada adigoo joogaad si fudud ku baran kartaa cuntooyinka kala duwan. wax walba ilaaha noo fududay alxamdulilah. waxaa idinkaga tagaa khayr caafimaad. mac salaama.